dilalka haldoorka dhalinyarada iyo qof walba oo waxgarada qabana aragtida midnimada Soomaaliya SNM wuxuu ugu qornaa tiirka dilka boqolaal qof ayaa madax jabis ay u dishay Soomaaliland gudaha magaalada Laascaanood waxaana isku dirtay iskuna dishay labadii wada dhashay ee dhulka lahaa 15 sano ee la soo dhaafay waa dhuldurugsi xeeradaysan ujeedka ugu weyn ay leedahay SNM waa in dadka dhulkooda ay ka cararaan kadibna ay la wareegto loona waayay cid kale oo sheegata gobolada istiraatiijiga ee SSC waa istiraatiijiyadii Yuhuuddu kula wareegtay dhulkii reer Falastiin magantana ka dhigtay ummadii qiimaha lahayd Laascaanood waxaa ku dhacaysa cawda guga xorriyadda waxaana fiinta sare gaartay diidmada Somaliland looga soo horjeedo reerka dhulbaante ee dhulkan degani waxa danahooda inay iyagu gacanta hadda ay ku qabsadaan baan u soconaa imka maamulka gacanta ku haya dhulkan ee xoogga ku yimi in ay fahmaan waxa maanta shucuurta dadkan ay tahay ay arkeen inay dhabka tahay inaana u dulqaadanahaynin wixii hore u dhici jiray dagaaladii ka dhacay waan ognaa dhulkan raggii baa jooga hadda maxaan ku dhahdaa xafiisyada jooga dhiigu wuxuu yahay xumaanta way og yihiin haddii lagu sii socdana waxa weeye dadku waxa weeyaan nin nacaano nabaddu waxaan leeyahay colaadii uma listo gobolka Sool wuxuu u muuqdaa in hilowga shacabku uu guuleysanayo gudaha magaaladu waa xor waxaana ka babanaya calanka buluuga ee Cawaale ismada dhaqanka gobolada SSC ayaa shirweyna uga furmaya magaalada Laascaanood kaasi oo looga tashanayo ayaha iyo mustaqbalka gobolka si maqaamkeedu sareeyo ayaa mid walba loogu soo dhaweynaya gudaha magaalada iyadoo kor loo qaadayo calanka Soomaaliyeed oo horey qofkii lagu arko uu dil toogasho ugu qornaa SNM gogasha ayaa ka talinta oo dhigay garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa guuleysatay waxaana bari la filayaa inuu Laascaanood yimaado garaadka guud ee dhulbahantay garaad jaamac garaad cali oo ay 2007 ugu dambeysay gobolka qabsashadii Somaliland ee magaalada Laascaanood shacabka ayaa rajo weyn ka qaba inuu guuleysto shirka ismada ay ka talinta gobolada SSC Somaliland ayaa qoqorinaysa waxay u geysatay bulshada 15 sano ee la soo dhaafay waxayna wajahaysaa cadaaladda ee beeweyne xoog iyo xeelad walba ayaa loo adeegsanayaa si Somaliland looga saaro gobolka Sool sida hadeer muuqata